waxay ahayd mid ahmiyad gaar ah oo la dhinaca dhaqanka isla markaana taariikhda ku suntan booqashadan maanta madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Shire iyo wafdiga uu hogaaminaya ay ku yimaadeen magaalada Boorama madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdigiisan ayaa waxa gobolka Awdal si ballaaran ugu soo dhaweeyay maamulka gobolka kan degmada xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama iyo dadweyne aad u tiro badan markii uu soo gaadhay Boorama ayaa madaxweyne ku-xigeenku waxa uu gurigiisa ku booqday ugaaska beelaha gobolada Awdal iyo Salal ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Toodi waxaana duhurnimadii maanta lagu kulmay miiska harimo sharafeed kulmisay gabi ahaanba odayaasha dhaqanka ee gobolka Awdal maayarka magaalada Boorama Saleebaan Xasan Xadiyo barasaab ku-xigeenka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Nuur Sugaal ayaa halkaas madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdiga la socda uga mahadnaqay odayaasha dhaqanka ee gobolka Awdal oo ay madashani si khaas ah u taabanaysay ayaa iyaguna halkaas ka hadlay maanta waxaynu ku midaysanahay dhaqankiina waan ka midownay siyaasaddiina waan ku midownay maanta كلي وحدهم لهي أبوه يعملوا برشلة رأوا ضمن بين أولاد يسأل مخالف جري إلى أبتاعن تهاي بالنور. مالك أسترى كلي وحلو بعدين هاي لأن هذا الله هيو ليس كحل صاروا ووقت الجريء يلو بعدين هاي. ولا مدحويني كلي أدي أقرب محسن صحيح ما أنت متميزين إيه كمان جلدي حتى أقول لك الصوت بيرتين هي توفير لي iyo heshiiskii dad badan soo socday aad iyo aad baan u mahadsantahay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan oo Cali Faarax oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri amadooda waa dhexdeeda haddii ay midowdo way xoog yeelataa ma aha xoog ay wax kulayso waxa weeye waa xoog ay horumar ku gaadho waa xoog أحيانا كشريعته وحول أي بلاك ولا ينجارك يجين كل احترامته يلا الله احترامه madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa isaguna halkaas ka hadlay هذا ميلودي فهذا صارتين difference أما هي حيالات تراهي إسلام ماليرو وطمال التشظر خلاص سود الديسي قرأ دي بدي جيسي فقط ما يستطيع دي هو نقاكيا كدول هذا نقول سلاسل يكون تاجر هذا ما يستطيع ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Toodi ayaa isaguna halkaas ugu dambeyntii ka duceeyay walaalayaal Allah yimakayo ilaahay xafadayna wada siiyo waafaqayo nimada maanta Allah yimakayo Allah u naxariistay nin rayid ah oo magaciisu ahaa marxuun Maxamed Daahir laguna naanaysi jiray Tareeso ayaa habeennimadii xalay lagu dilay gudaha magaalada Xariirada sida uu ku soo waramayo wariyaha telefishinka Hoon Cable TV ee magaalada Saylac wariye Maxamed Cawaale oo khadka telefoonka igula soo xidhiidha ayaa ay xaqiijiyay in marxuunkan lagu aasay isla saakaba gudaha magaalada Xariirada isla markaana ay aaska marxuunka ka soo qayb galeen barasaabka gobolka Salal iyo saraakiil kale oo dhinaca amniga sidaas oo kale ayaa wariye Maxamed Cawaale waxa uu sheegay in xaaladda magaalada Xariirada ay tahay mid degan isla markaana ciidamada amnigu ay halkaas ka soo xidhxidheen 5 nin oo kamid ah odayaasha dhaqanka ee deegaankaasi Xariirada sidaas oo kale ayaa madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo dhacdadan Xariirad ka dhacday si taxadir leh uga hadlay ayaa waxa uu yiri hawsha ilaahay naga soo fudeeyo gacantaasi in la gartana xidho ilaahay nagu sii fidin oo dagaal halkaa wax kaba dhigo sida ilaahay nagu sii fidin ilaahay ka rajayna dowladda kulli waa laga hawlgalaya sidii oo dalabaad kale marka wax dhacay maanta waa la tagi dowladdu إدي سلف فلك لون هذه لها والرادي إذا كانوا يأكلون لكن الدولة كعن قطع أنت ما تدقق كوي ما قلبات دقق كوي الدولة كعن قطع أنت فلك جيستي هتقول لنا عن غيره يعني الشيطان كمان لما ده هو لما تفتح كل الموضوع ده وين